Wararkii ugu dambeeyay oo kooban, wargeyska Mareykanka ka soo baxa ee Newsweek ayaa maanta ku waramay inuu Shiinuhu u diray Mareykanka hanjabaad culus oo si adag ugu qoran, isagoo uga digay inaanu faragelin ku samayn arrimaha heshiisyada uu la leeyahay Iiraan. Wuxuu si gaar ah uga digay cawaaqib xun oo ka dhalan kara haddii Mareykanku isku dayo inuu wax ka bedelo ama farageliyo heshiisyada ganacsi iyo kuwa tamarta ee u dhexeeya Shiinaha iyo Iiraan. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in markab shidaal oo Shiineys ah uu horey Mareykanku cunaqabateyn ugu soo rogay oo si guul leh uga gudbay marinbiyoodka Hormuz iyagoo ku sii jeeda Shiinaha, inkastoo ay jirto xayiraado uu Mareykanku ku dhawaaqay. Dhanka kale, sida ay werisay wakaaladda Reuters, Shiinaha ayaa si cad uga hor yimid Mareykanka waxaana jebiyay xanibaadda la saaray marinbiyoodka Hormuz. Dhanka kale, warbaahinta ABC News ayaa sheegtay maraakiibta shidaalka Iiraan inay si aan caqabad lahayn uga gudbayaan marinbiyoodka Hormuz, tallaabo lagu sheegay inay Iiraan muujinayso sida ay u tahay cidda xakamaysa Hormuz, oo Mareykanku uusan samayn karin hanaan uu ku xayiro maraakiibta Iiraan kadib markii Trump uu shalay ku dhawaaqay in la xidhay marinka oo aan loo ogolaan doonin maraakiibta Iiraan. Ugu yaraan 4 markab oo lala xidhiidhinayo Iiraan, kuwaas oo 2 ka mid ah horey u tageen dekedaha Iiraan, ayaa maanta ka gudbay marinbiyoodka Hormuz, taasoo ka dhigan inaysan Iiraan dhag jalaq u siin go'aanadii uu soo saaray Trump ee ahaa go'doominta shalay uu Mareykanku saaray marinka Hormuz, sida ay sheegtay BBC. Xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa sheegtay inuu Mareykanku ku jiro xaalad uu aad daciif u yahay marka la eego dhinaca Iiraan, iyadoo si cad u sheegtay inuu Mareykanku lumiyay awooddii iyo saamayntii uu ku lahaa wadahadalladii uu kula jiray Iiraan, isla markaana hadda uusan Mareykanku lahayn gacanta sare, taas oo ay ku tilmaamtay inay ka dhigayso xaaladda mid adag oo khatar ah. Si fudud waxay Hillary Clinton u sheegaysaa inuusan Mareykanku waxba gacanta ugu jirin si uu u cadaadiyo Iiraan, oo wadahadallada socda kaararka cadaadiska ay gacanta ugu jiraan Iiraan, gaar ahaan marinbiyoodka Hormuz, inuu yahay waxa ay Iiraan ku cadaadinayso Mareykanka iyo guud ahaan caalamka, taasoo ugu dambeyn qasbaysa heshiis ay ku gacan sarreysay inay Iiraan gasho ama dagaal dheer oo aan faa'iido lahayn uu Mareykanku la galo, saamayntiisana caalamka ay wada gaadho. Shiinaha ayaa ku hanjabtay inuu qaadi doono tallaabooyin ka dhan ah Mareykanka haddii Mareykanku uu sii wado kordhinta cashuuraha lagu soo rogo Shiinaha, arrin ay Beijing sheegtay inay ku salaysan tahay weerar been ah oo ay sheegeen inay taageerayaan militariga Iiraan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa maanta sheegay wararka warbaahinta ee ku eedeynaya Shiinaha inuu taageero militari siiyay Iiraan waa kuwo gebi ahaanba been abuur ah. Haddii Mareykanku uu ku sii socdo kordhinta cashuuraha iyagoo ku salaynaya eedeymahan, Shiinuhu wuxuu qaadi doonaa tallaabooyin jawaab ah. Shiinaha mar walba si taxadar leh oo mas'uuliyad leh ayaa u maamula dhoofinta qalabka militari, wuxuuna si adag u raacaa sharciyadiisa gudaha iyo waajibaadkiisa caalamiga ah. Iiraan iyo Pakistan ayaa maanta wadaagay fariimo lagu diyaarinayo wareegga labaad ee wadahadallada lagu raadinayo heshiis ay gaadhaan Mareykanka iyo Iiraan, iyadoo Iiraan ay sugayso faahfaahin ku saabsan wareegga labaad ee wadahadallada oo isla Pakistan ay martigelinayso, sida ay maanta werisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iiraan. Dowladda Talyaaniga ayaa si rasmi ah u joojisay heshiiska difaaca ay kula jirtay Israa'iil, kaasoo ku saabsanaa isweydaarsiga qalabka militari iyo cilmi baadhista tiknoolajiyadda, sida ay maanta sheegtay ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni. Waxaynana tidhi annagoo eegayna xaaladda hadda jirta, dowladdu waxay go'aansatay inay xoojiso dib u cusboonaysiinta tooska ah ee heshiiska difaaca ay la leedahay Israa'iil. Meloni ayaa hadalkaas ka sheegtay shir ka dhacay magaalada Verona ee waqooyiga Talyaaniga, sida ay baahiyeen wakaaladaha wararka Talyaaniga ee ANSA iyo AGI. Wakaaladda wararka Reuters ayaa maanta ku warantay in kooxaha wadahadallada ee Mareykanka iyo Iiraan ay ku laaban doonaan caasimadda Pakistan ee Islamabad dhammaadka toddobaadkan si ay u sii wadaan wadahadallada nabadda. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ku tilmaamay dowladda Spain nidaam ku dhisan mabda' iyo anshax bini'aadamnimo oo dhab ah. Xilligan si daacadnimo ay ka go'an tahay Shiinuhu inuu dhinac istaago ayaa uu rabaa Spain. Inta lagu jiray wadahadalladu Beijing kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez oo booqasho rasmi ah ku joogay Shiinaha, waxa uu yidhi Xi Jinping, Shiinaha iyo Spain waa dalal leh mabda'. Waxaan diyaar u nahay inaan istaagno dhinaca saxda ee taariikhda, waa inaan ka soo horjeesanaa nidaamka xoogga ku dhisan ama sharciga keynta, isla markaana si wada jir ah u ilaalino iskaashi caalami ah oo dhab ah iyo nabadda iyo horumarka dunida. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance ayaa maanta Fox News u sheegay, waxa uu yidhi waxaan rabnaa dagaalka Iiraan in lagu soo afjaro heshiis weyn oo guuleysta. Madaxweyne Donald Trump ma doonayo inay muddo dheer uu sii socdo dagaalkan. Waxaan ognahay in qiimaha tamartu kacday, isla markaana shacabka Mareykanku ay saameyn ku yeelatay, sidaas darteed waxaan wadnaa dadaallo wada hadal
oo adag si arrintan si dhow loogu xalliyo. warbaahinta Bloomberg ayaa ku warantay inay socdaan wadahadallo u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan si loo qabto wareeg kale oo wadahadallo si toos ah loona gaadho xabad joojin waqti dheer ah. warbixintan ayaa lagu sheegay ujeedadu inay tahay in la qabto wareeg cusub oo wadahadallo ah ka hor inta aanu dhammaan heshiiska xabad joojinta, iyadoo mar kale la soo jeediyey wareegga labaad ee wadahadallada inay martigeliso Islaamabad oo wareeggii hore lagu qabtay. waxaana la rabaa in la qabto shirkan inta aanu dhammaan 2 usbuuc ee xabad joojintu. 154 saraakiil iyo askarta Israa'iiliyiin isugu jirta ayaa lagu dhaawacay dagaaladii ka dhacay koonfurta Lubnaan tan iyo Khamiistii la soo dhaafay. 34 ka mid ah ayaa qaba dhaawacyo culus, halka tirada guud ee lagu dhaawacay tan iyo markii ay dib Israa'iil u bilowday duulaanka Lubnaan ay gaadheen 565 sarkaal, sida lagu sheegay war-saxaafadeed maanta ka soo baxay ciidanka Israa'iil oo aan lagu soo qaadin saraakiisha iyo askarta dagaalada uga dhintay Israa'iil laguma darin. Mareykanka iyo Iiraan ayaa wareeggii labaad oo wadahadallo toos ah Khamiista toddobaadkan ku yeelanaya caasimadda Pakistan ee Islaamabad, sida uu wariyey wargeyska Mareykanka ee ka soo baxa The Atlantic. wiilka uu dhalay madaxweynaha Uganda Museveni oo ah taliyaha guud ee ciidanka Uganda Muhoozi ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu Israa'iil u diro 100,000 oo askari oo Ugandees ah si ay u difaacaan Israa'iil dagaaladan ay kula jirto Lubnaan iyo Iiraan. warbaahinta CBS News ayaa ku warantay Mareykanka iyo Iiraan inay weli xidhiidh leeyihiin kadib fashalkii wadahadalladii Pakistan, iyadoo warbixintu sheegtay inay dhinacyadu sidii hore hadda iskaga soo dhawaadeen, taasoo suurtagal ka dhigaysay in dib wadahadallada loo bilaabo ka hor inta aysan xabad joojintu dhammaan 14 cisho ee xabad joojinta ahayd. Trump ayaa yiri Kuuba waa dal fashilmay, waxaana laga yaabaa inaan u jeesano kadib markaanu ka dhammaano Iiraan oo aanu Kuuba weerarno. hadda waa inaan fahanaa sababta uu Trump ugu celceliyo Soomaaliya inay tahay dal fashilmay. maaha wax iska caadi ah dhaleecayn wax loo arki karo, sababtoo waxa suuragal ah meesha xigta ee Kuuba ee la weerari doono inayba Soomaaliya noqoto. madaxweynaha Finland Alexander ayaa sida ay Al Jazeera bahisay waxa uu yidhi xakamaynta marinbiyoodka Hormuz waxay gacanta ku hayaan Iiraan, waxay u dhigantaa hub nukliyeer oo dhab ah. xaqiiqda aan la iska idhitiri karin waa in gacan sarreyntu ay jirto dhinaca Iiraan oo haysata awood ay wax ku cadaadin karto, halka Mareykanka iyo xulafadiisu waanay haysan wax ay ku cadaadiyaan dhigooda. wasaaradda difaaca Iiraan ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay sida ay baahisay Al Jazeera waxaa lagu sheegay Trump waxa uu ka fashilmi doonaa isku day kasta oo uu ku doonayo inuu si military ugu farageliyo marinbiyoodka Hormuz iyo gacanka Cumaan. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa si cad u sheegay in Israa'iil qorsheynayso inay fuliso duulaan ay ku qabsanayso dalka Suuriya, isagoo tilmaamay in Turkigu isku day kasta oo ka dhan ah Suuriya uu arko arrin amni oo qaranka Turkiga ka dhan ah. waxa uu intaa ku daray Turkigu waxa uu isku diyaarinayaa dhammaan suurtagalnimada ka dhici karta Suuriya inay Israa'iil soo weerarto iyo inay sidii horeba ahaato. wargeyska Wall Street Journal ayaa ku warramay in ka badan 15 markab oo ah kuwa dagaalka Mareykanka ee inay ka qayb qaadanayaan dhaqangelinta go'doomintii lagu soo rogay Iiraan, inkasta oo Iiraan iyo Shiinuhu aanay dheg jalaq u siin doonin.